munaasabad casho sharaf iyo soo dhoweyn isugu jirtay ayay xalay rugta ganacsiga Soomaalida Sweden u samaysay safiirka cusub ee Soomaaliya ay u soo magacowday guud ahaan dalalka Scandinavian-ka gaar ahaan boqortooyada Sweden. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 40 shirkadood ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. haddana ku soo dhawaada kelmadihii soo dhoweynta iyo kelmadii uu danjiray Cawaale Cali Kulan ee ka jeediyay madasha. insaanka ilaahay uu abuuray laba shayba waa u muhiim camalka saalixa iyo iimaanka marka hadii ummadda muslimiinta camalka saalixa laga leeyahay gaalidana iimaanka laga leeyahay marka waxaad arkaysaa sidoo ilaahay sheegay bini aadamka inay khasaaro ku wada sugan yihiin watawaasow isu dardaarma bilxaqi watawaasow bisabri xaqa iyo iskuna dardaarmay samirka waa wax maanta naga maqan oo wadankeeni labadaas haduu haysan lahaa ama anaga baan haysan lahayn aan kulli baan lahayn hadda intaas oo gudbo waxaan ku soo dhaweynayaa anagoo ku hadlay magaca hooyadayda Stockholm ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed maantana ay ugu casuumeen ganacsatada Soomaaliyeed su'aalatul safiir marsadaha iyo mar farad ku soo dhaw gudoomiyaha rifkiska warti sharafka dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda qiimaha badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waxaan ka tirsanahay shirkadda Nodsom waxaana ku hadlay saaxiibkay Axmed Nuur si marti sharaf aana ayaan haddana u soo dhaweynayaa safiir ku soo dhawow Sweden Stockholm. sharaf bay noo tahay caawa inaan annagoo wuxuu ahaa ku hadlayna magaca shirkadaha kala duwan ee Sweden inaan soo dhaweyno safiirka Soomaaliya looga soo magacaabay inuu fariisto dalalka Scandinavian-ka khaas ahaan Sweden in Cawaale Cali Kulan oo aan markii ugu horeysan kulanno marka hore soo dhawaan ku leeyahay sidoo kale sharaf ay tahay inaan sidoo kale salaamo gudoomiyaha ururka ganacsatada Soomaaliyeed Cabdullaahi Macalin iyo waliba gudoomiyaha ururka isbahaysiga ummadda Soomaalida Sweden Xaban Xasan oo isaga runtii ahaa ururka aan isleenahay waan ku dugaashan jirnay maqnaanshaha safaaraddan wax badan oo moogeysiin jiray balse maanta aan islahaynaa labadoodii ilaah baa mahadaas iskale dhammaan ganacsatada waan salaamaya halkan kasoo qayb gashay waad ogtihiin oo dadka qaarkood ay ka yimaadeen gobolada oo ay weliba qaarkood aad u fog yihiin oo waqooyiga ay yihiin su-aashidaas aad baa ugu mahadsantihiin iyadoo macnaha runtii aan oran karo caawi waxay noo tahay dad ganacsatadeenu kulan anaga noo muhiim ah oo aan kula kulmayno aan kusoo dhaweynayno safiirka dowladda Soomaaliya oo soo magacawday wadanka Sweden ambassador Cawaale Cali Kulan oo xaruntiisu aanaysa magaalada Stockholm laakiin uu ahaan doona safiir wadamada Scandinavian-ka guud ahaan waxaa kaloo runtii ayadana mudan inaan halkan ka xuso waxaa jooga dad marti ah oo runtii ayaga laftoodu qaarkoodna siyaasiyiin yihiin qaarkoodna ay yihiin shirkada ay la kuleeyihiin iyo macnaha noo noqota macnaha meeshani macnaha lamaantay dadku waxay tirsanayaan safarada aad loo tirsanayaan ku soo yahanada dhamaantiin waxaa ilaahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta waxaan rabay inaan aayadda akhriyo بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورنت وحلو فرحوا أنت سوقفوا تشقينا كان عسته أقوي عنه عندكم كل كهل لا يو خوش وذا كجرة إن دلال سفارة قيمة قيمها أي معركتي كتحكيليان كعزمان aadan inta kaaga mahadinayaa dhammaantiin inta joogay inta dadka ummadda Soomaaliyeed oo Sweden aan ku arkay oo qiimeyntooda qarannimada ku jirta iyo waan ka filayay laakiin mar walbana maaragtay cajibiye oo tixgelinta muujiyo baalaad waxaan ka tagay sanaanta xildhibaan Hamza mar labaad inaan arko waa maaragtay waa ku mahadsantahay iyo hadalka qiimaha badan oo aad sheegtay مرة إن أكون نقد باهظة سفارة دي أنت بتاسوان يعني مدة ديران واحد لدونا لكن نيلسون مانديلا دكتور وحوير هذه أرين فرحات اللي جرتوا عمدتكو أي جاهول في عن كجران leaders ka ama dadka wax loo xil saaray inay qabtaan waxaan fiican aan lahaynay behind the scene
ay ka liid gareeyaan gadaal ay ka liid gareeyaan taas macnaheedu waxa weeye hadduu dadkii meesha saxda ay u socdaan in la hago uma baahna ayagaa maaragtay gaaraya laakiin haddii khatar jirto in markaas qofkii mas-uuliyadda loo soo xilsaaray khatartaas uu ka hor istaago marka inta wanaagga aad qabanaysaan oo isku xilqaanteen oo horumarkaan aad gaarsiiseen oo runtii aad marmar is leedahay safaarad ahaan wixii looga baahnaa safaaraddu waa inay qaran matasho xiriir samayso calankii taagto dadkii maaragtay dhaqankii ilaaliso xataa meeshaan ummad soomaaliyeed joogin intaas haddii dal kale xiriir la leed waa inaan samaysa laakiin joogitaankii dadka soomaaliyeed ay joogeen dalkaaniito ama muddadii ay joogeen dhibba haba la kulmaane howl badanayna ay qabteen oo ah inay dhaqankii ay ilaaliyeen sharafta ka mid noqdeen siyaasaddii ka dhex muuqdaan haddana ay bilaabat inay ganacsigii insha allah ay maro dhow ka dhex muuqan doonaan ilaahay anagoo dhan hanoo guuleeyo dadaalkiina waa ku mahadsantihiin laakiin waxaa aada ugu mahadsantihiin qof kasta shaksiyan waa dadaalaa inaad isku timaadeen oo wada socotaan oo aad maaragtay maxaa la dhahaa caqabad iyo horumar labadaba aad qaybsanaysaan taasna waa ilaahay mahadiisa howl fiican haysaan ilaahay idinku sii guuleeyo ma u malaynayo inay hawshaas safaarad kabi karto ma u malaynayo wadajirkiina iyo inay u baahan tahay xafiis taas waa mid aa idinka samayseen waa caawin karnaa waa ilaalinaynaa insha allah inaad maaragtay wixii aad safaarad uga baahnaydeen oo iska shaqo dowladeed oo xafiis ah oo waxaan ku shaqaynaa siyaasad go-an waxaan ku shaqaynaa awaamiir laakiin wixii ummadda ay intaas uga baahan tahay insha allah inaad ka heshaan waan ku dadaalaynaa haddaan ku dadaali weyno oo aan ka gaabino oo ay karti xumo idinkaaga soo baxdo ama caqabada u aragtaan soomaaliya laftirkeeda waxaa ka jiro xornimo kuwa kor u qayliya noqdo kuwa dhagaxeeya noqdo safaaradda yidhaaha waxbay ka gaabaysay waana matali weysay yacni xornimada intaasay duwan ma aha dadku inay wada socdaan markii wax laisku raacsan yahay keliya laakiin markii lagu kala aragti duwan yahay in laisku sheegi karo midda kale oo aan rabo inaad iga caawisaan maadaama aad ganacsatadii iyo communitiga intaba aad tihiin safaaradda waxay u furan tahay qof kastoo soomaaliya oo rabo inuu servicekiisa dalka soomaaliya uu ku lahaa uu ka helo ha ahaato warqad ha ahaato maaragtay basaboor qofkaasu qasab maaha inuu siyaasadda aniga shaksi ahaan ama midda dowladda uu jeclaado ama uu necbaado ama midnama hadduu qarannimadaaseyto uu maaragtay isagu kalsooni ama dhulkaas ka yimid fikirkiisu nuucee rabta ha ahaato mid ka rabo inuu goosto iyo ka rabo inuu goosonba safaaradda wixii xaqu ku leeyahay waa uu ka helayaa wixii siyaasada oo aragti ah oo fikira oo lagu kala duwan yahay waxaan rajeynaynaa si amika bala oo ummadda kale u xalisato inaan wada hadal discussion iyo inta waa baxay marka hawsha safaaradda howl dadka shacabka soomaaliyeed siyaasad ay ku xadidan tahay وصبح وانا على سنة